reer sooba la arka laakiin reer berbera waa dhulka dadweynaha xaafadda wadajir ee magaalada Berbera oo isugu soo baxay xaafadaasi ayaa waxay ka hadleen dhul ay sheegeen in lagu haysto muwaadin muddo dheer deganaa dhulkaasi waxaana ay sheegeen ciidamada booliiska oo goobtaasi soo gaaray halkaasi ay ka rideen rasaas kala duwan isla markaasna dadka qaarkood ay xidhxidheen dadweynaha halkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa waxay sheegeen in dhulkaasi ay muwaadinkaasi ka qaadayaan xogayaha dawladda hoose ee degmada Berbera iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera meesha uu leeyahay nin dhul bahantay lama qaadi karo oo lama bixin karo oo looma tagi karo oo looma dhawaan karo mar haddii meel dhul bahanta leeyahay dhul bahanta wuxuu ku cabanaya waxa soo kale iyo wax la mid ah ayuu ku cabanay oo ka dhul bahanta geeyay markaas wixii aynu kobkiyo badada kaga jabnay afweena ma isku tagnay halkan kama dhici karto Soomaaliya kama dhici karto dhul bahante waxa dhalay Isaaq dhul bahanta Isaaq baa dhalay annagu dhul bahante waxay karo Allah hadlaya maayirka Cabdishakuur waxaan ka codsanayaa inuu degdeg kiiska dhulka u soo farageliyo imika maati badan ba waxaan ku askarta gacanta u qaaday Cabdi Faarax halkaas kooyaya shicibku way qiiroodeen way ooyeen asaguna halkaas kooma ku galay imika degdeg ula yaacnay waxaan ka codsanaynaa xildhibaan walbaan dooranaa markay leeyahay sida banaana anaga nagu soo doontaan markay kursiga koraana anaga oo loo yeeshan dhulka iyaga bay qaadaan sida Cabdi Faarax kale waxa ka codsanaya hoos loo soo eego kiiska Cabdi nin reer Berbera qoobsada reer Berbera Cabdi Faarax waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdishakuur iga qabo nimanka iga qaadayo dhulkay adiga la daacada waxaan ka codsanayaa wasiirka arrimaha gudaha ha soo farageliyo aniga nin reer sooba la arka laakiin reer Berbera waa dhulka xoogaysi waa laga qaadayaa maynu dhul bahanta yahay waa la ogaaday waa ka bartaaka shaqaynaya hada foortaabana wallahi wax kala arkasado billahi wax kala arkasado halkan waxa ka dhacay nin muwaadiya oo 636 sano deganaa oo aabii ka dhaxlay oo maxay tahay warqadii dhaxalkoobta sita sharcigii sita oo intaasoo sano hadee maayo waraaqina ku yihiin ba maanta hadee maayo reer ahaan lagaga qaadayaa waxaanu leenahay ma dhici karto haddii inanka dhubahanta waragteen annaga ka sokayna xildhibaan la hadlayaa xildhibaanada iyo xogayaha arinta hawsha dabada ka wada waxaan maayirka ka codsanayaa waxaan ka codsanayaa Cabdishakuur Cidin dadka jilicsan dadkeena ku dhex nool dadka maxay tahay masaakiinta odabaadu ahayd gudoomiyaha gobolka Saaxil barsaabka taliyaha qaybta duqa magaalada maamulka gobolka oo dhan heer degmiye heer qaran iyo heer degmaba heer gobol iyo heer degmaba heer qaran wasiirka arrimaha gudaha waxaan leenahay xogayahan iyo xildhibaanadan iyo sharci daradan Berbera ka socota wax ka qabo soo sano ayuu kula taagna sharci u haysta ilmaha reer waxaan leeyahay ka daaya nin walba abtibaad leedahay nin walba qof aad dowratabaad leedahay waxaan idin leeyahay hadaa ka day weydaan wallahi baan nabad loogu seexanayn wallahi baan nabad loogu haysanayn wallahi baan ninna toos u qaadanayn waxa inoo ballana ninkii nagu dhawri waayo ninkii nagu ixtiraami waayo ninkii naga xishoon waayo ina kanu abtiga u nahay waxa ila tahay waad naxaniya taabatay waxaad ka heshaa Cabdirasaaq Qaasin magaalada Berbera.